su-aasha waxay leedahay shiikho waxaan arkay sawirro aad leedahay oo Facebook la soo dhigay aad xeebta joogtid maxaa ka jira waxaan leeyahay annagu meeshaan dadka u wadno hadee dadka u wadnaa dadka waxaan ka soo wadnaa colaadda waxaan ka soo wadnaa qaraxa waxaan ka soo wadnaa ismiidaaminta isdilka waxaan u wadnaa farxadda inaanu faraxsannahay inaanu Soomaali nahay inaanu xeebaha ku dabaalanno bal jaahilkiinta ee Soomaaliya gabadh baa su'aal weydiisay su-aasha weydiisayna wuxuu ahaa sheekhu ma xalaal baa soo xaaraan qaabkan aad u dhaqmaysaa sawiraantan iyo waxan sidii la rabay ugama jawaabine bad kala ula galayba annagu dadka waxaan u soo wadnaa annagu xaqan baan doonaynaa inaan keeno annagu qaraxan ka fogeyna ninkan aad arkaysan waa qolooyinka aaminsan quraaniyiinta weeye sababtoo ah xadiista rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ay dhammaantoodba kasoo horjeedaan waxay ku leeyihiin anagu gudayaan xadiis iyo carabi waxaanu doonimayno garamayno muusikadu waa xalaal waxay ku leeyihiin quraanka xagga ka qoranta muusikada barshaag waxyaalo fara badan ayay sheegtaan dadkani waana ummad loo soo tarbiyadeeyay amba loo soo tababaray sidii dhaqanka amba diinta islaamka yani u diri lahaayeen oo maaragtay yani horena waan idigu sheegay in Soomaali waxa la doonayaa in laga dhaxelo Soomaali Kristaan Soomaali Shiico Soomaali hayo yani Soomaali badan oo aqoon fara badan haystaan la doonaya